waana salaam asxaabteyda. Anigu magacaygu waa Sucaad, waxaana jiraa 28 sano. Qofkan waa ninkayga, waxaa la dhahaa magaciisa Axmed. Anigu waxaa ku jirnay xaalad fiican. Habeenada ka mid ah, walaalkay Maxamed ayaa la hadlayay, oo weli waxaa kula hadlayay video call. walaalkay wadanka joog waxba kama barto, wadan kale oo iga shisheey ayuu wax ka bartaa. Sani ma filaan ah ayaa mobilkayga ee dhacay, cabaars ay igu qaatay inaan soo qabsado. Markaa telefoonka soo qabto waxaa arkay walaalkay oo si xun ii soo fiirinaya. Waxaan ku iraahday maxaa kugu dhacay oo sidaan igu soo fiirinaysaa? Abay markuu mobilka dhulka kaaga dhacay sina ma filaan sirta hoosteeda waxaa ku arkay wax nuuxsanaya. Ani waxaa ku iraahday wixii ciyaalka miyaa noo wadaa? Wuxuu dhahay uqsim billah wallahi wax nuuxsanaya ayaa arkay. Leerka ayaan daaray, meelaha ayaan fiiriyay, sirta hoosteeda ayaan fiiriyay. Mobilka ayaan soo qabsaday, waan tusay walaalkay in waxba isu ku jirinin. Ma u jeedaa anisa sirta hoosteeda waxba ku jirin. Laga yaabo adigana maskaxda wax gashatay. Ani daaqada ibaabaha si fiican ayaa u xiraa. Wuxuu igu dhahay walaal is ilaali. Waxaan ku dhahay hawalwalin aboowe. Markaa cabaas la hadlaynay wuxuu yiraahday waa saaxanaya ilan waay wuxuu leeyahay bari subaxdii jaamacad. Waxaan wacay ninkayga, waxaan ku iri goorma imaanaysaa? Wuxuu yiraahday bari subax ayaa imaanaya. Waan saaxday, habeen barkii ayaan soo kacay, waxaan maqlayay sharqan ayaa maqlayay. Aad ayaa u cabsaday, jirkaygana aad ayuu u girgiirayay. Guriga waxaa jooga kaligay, qof kale oo sharqan ma joogo. Anigu waxaan bilaabay inaan quraanka akhristo. daqiiqado ka bacdi waxaa dareemay in sharqantii joogsatay. Kadib waan saaxday, indhaha ayaa isku qabsaday. Kadibna waxaa maqlay sariirteeda hoosteeda sharqan ah ka maqlayay, sidii in qof uu dhaqdhaqaaqayo sariirteeda ayaa ka dareemayay. Kabacdina qolka fadhiga ayaa imaaday sidaan u saaxdo. Alxamdulillaah, habeenkii sidaas ayuu nagu dhaafay. Waxaan u maleynayaa hadalkii walaalkay u sheegay, hadalkaasoo ahaa walaal waxaas maskaxdaada weeye ee waxaa is ilaabsii. Subaxdii waxaa ku soo kacay saacada sharqanteeda. Kadib dabca waxaa bilowday hooshii gurigayga iyo inaan guriga hagaajiyo, inaan cuntada kariyo. Dabca waxaa imaanayay dhinkayga. Maanta aad ayaa u faraxsanaa. Waxaa maqlay ibaabka la soo qarqaraacayo. Dhanka ibaabka ayaa imid. Alxamdulillaah wuxuu noqday dhinkayga. Hab ayaa siiyay. Dabcan asaga wuxuu aaday meeshuu dharka iskaga soo bedelayay. Anigana cuntada iyo wixii ayaa sii diyaariyay. Hay iska waran, shaqadana ka waran. Wuxuu igu dhahay aad ayuu ficneed. Adiga habeenkaaga see uu ahaa? Anoo walwalay ayaa waxaa ku dhahay wax balaayaa ma dhicin. Wuxuu igu dhahay runtii. Ani waxaan ku iraahday waxba walwalin, anaan xalay si fiican u saaxanin. Waayo oo xalay intaa maqnaa wax miyaa dhacay ii sheeg? Maya, intaa wax guriga ka maqnayd wax ma dhicin. Waayo anaan u baray inaan guriga kaliya saaxdo. Waa inuu u barato inaan guriga kaliya saaxatid. Waayo ani shaqo ayaa aadaya badanaa. Waxaan ka baqayaa intaas ka bacdi in wax kala dhacaan. Bacda sheeko ka bacdi maalintii waqtiga xoog ayuu nagu dhaafay. Waxaan arkay asoo dharka iska soo bedelay. Waxaan ku iraahday xagee socotaa? Hadda ayaaba timaaday, xagee ordisaa? Iga raali noqo. Maamulaha ayaa soo wacay, wuxuu yiraahday waa inaad si degdeg ah ku timaadid, shir ayaa laga qayb galayaa. Laakiin iga raali noqo, ana ayaa ku imaan doona. Hab ayuu siiyay asagoo degdegsan uu iga tagay. Fadhiga ayaa imaan sida nafteeda u mashquuliyo, filmaan aan jeclahay oo daabato. Kadib waxaa maqlay qof ii ag taagan neeftaasoo ahayd sida qof oo kale. Waxaa aad iyo aad u rumaysanaa in neeftaas ahayd neef bini'aadan. Gadaal ayaan fiiriyay, waxa ma joogaan. Dhanka TV-ga ayaan fiiriyay, waxaa arkay TV-ga dhiig ku yaala. Aad ayaan u naxay oo waxaan isku dayay inaan TV-ga kanaalka bedelo. Uu bedelman waayay, waa dhiiggan uu ka tirtirman waayay. Waa yaabay. Anoo baqaya ayaan waxa imaan sariirteeda. Telefoonkayga ayaa soo qabsaday sida uu waco walaalkay. Marka aan walaalkay wacay, walaalkay wuxuu igu dhahay hay abaayo see tahay, ma fiican tahay? Anigu waxaan ku iraahday bari aboowe ma fiicni, xaaladeedana ma fiicna. Aad ayaan u cabsanayaa. Gurigayga waxaa ka dhacaya waxyaalo qariib ah. Wuxuu dhahay kuma maqlo Sucaad. Waxaan ku iri walaal ma maqlaysaa? Walaalkay cabaar ayuu aamusay. Wuxuu dhahay hadda adiga maqlaysid anigu kuma maqlo abaayo. Sharqama ka daran ayaa maqlay heer waxaa gaarownahay istaag.